بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وهرين waxaan duco iyo bogaadin iyo dhiirigelin u samaynaynaa ardayda imtixaanaadka u fadhiisanaysa anagoo u sheegayna imtixaanku ma aha wax laga cabsado oo qofka cunaya waa ikhtibaar ama waa tijaabin qofka la tijaabinayo macluumaad hore loo sheegay ama tacliin hore loo soo baray in wax laga weydiiyo si loo qiyaaso habka uu u bartay maadadii ama cilmigii loo soo sheegay. marka ardayda waxaan kula talinayna ugu horeyn horta walwal badan inaysan imtixaan ka muujinin oo ayna u qaadanin meesha ugu dambeysay oo noloshooda inay wax weyn yani imtixaanka u dhibaayo. taas waxay keenaysaa qofka in ay ka baabi'iso macluumaadka uu bartay. marka waxaa rabaa si kalsooni ay ku jirto oo ku faraxsan yahay inuu dhameeyo marxalad ka mida maraaxishii tacliintiisa una socdo marxalad kadib oo ka dambaysa isagoo faraxsan inuu imtixaanka isu diyaariyo. isu diyaarintaas oo kala baxda intaan imtixaanka la gelin iyo in imtixaanka loo fariisto ee lagu jiraba. haddaynu ka bilowno inta aan imtixaanka la gelin ka hor waxaa muhiima ardaygu inuu diyaarsanaado oo maadada imtixaankaas uu ku galaayo mudaakaradeeda iyo akhrinteeda iyo fahamkeeda inuu si fiican yani usoo akhriyo. midda kale yani wixii inuu fahmo ayaa muhiim ah. inuu wixii dhan wada xifdiyo waxaa laga yaaba marka kale inay waxoogaasi ka noqdaan, laakiin marka wax la mudaakaraynayo ama la akhrisanayo inuu arday maadada kor intuu isaga xiro macluumaadkay xambaarsan tahay oo meesha uu isleeyahay meelahaas ayaa ugu muhiimsan oo su-aalaheeda sida ay tahayna uu xooga uu saaro si faham guudna uga qaato qodobada u baahan in la xifdiyo oo yani ayaga sidooda macluum ahaan loo weydiinayana inuu sidoo u xifdiyo fahamka guud ee maadada inuu si fiican u haysto. inta uuna soo gaaray imtixaanka inuu naftiisa u nasiyo oo hurdada yani uusan iska qaadin oo saacada dheer inuusan soo jeedin. maxaa yeelay taas waxay keenaysaa qofkii inay wixii yani istiicaabi waayo ama uu keeni waayo. waana waxa soo tijaabiyey oo khibradaha dadka imtixaanaadka soo geli jiray maadada ay habeenkaasi yani aad ay isugu dhibaan natiijada dambe wax fiican aysan keen ayaa dhici karta, laakiin xilliyada nafta ay mashiirka tahay ama firfircoon tahay wixii uu akhriyo ayaa si fiican u isticaabi karaa. markii wax la mudaakaraynayo ama la akhrisanayo maadadana waxaa raba waxa la tarkiis inuu siiyo oo wax meesha u qoran inuu yani fahamsan yahay ama uu xifdinayo inuu yani isha ku hayo oo si fiican u qabto. laakiin mar badan waxaa dhacaysa ardayga inuu u maleeyo inuu wax akhrinayo oo buugga u furan yahay laakiin maskaxdiisu meel kale ay jirto intaas oo saacadood oo uu fiirinayay yani uu fiirinaya mooge muuna tarkiisinin oo yani inuu wax ka qabto iskumuna dayin. intaas waxay ka fiican tahay dhowr daqiiqo oo tarkiiska ama yani xooga uu saaro wixii inuu qabto aday muhiim u tahay. marka inuu soo diyaariyo maadadii aqoonteeda u diyaariyo asbaabtii uu imtixaanka ku geli lahaa oo ay nasasho ku jirto oo maskax furan ay ku jirto oo deganaansho ay ku jirto oo walwala-aan ay ku jirto oo u xiiso in imtixaanka uu qabo oo ku faraxsan yahay inuu marxaladaas ka gudbaayana uu haysto waa inuu ahaado. marka uu soo galo imtixaanka oo warqadii imtixaanka la siiyana yani inuusan nixin oo uusan u qaadanin waxaana in yani wax adag ay yihiin. haddii markuu akhriyo maadada waxaa laga rabaa su-aalaha inuu aada ugu celceliyo oo horta uu fahmo su-aasha la weydiiyey. waxaa dhici karta inuu si u akhriyo sida uu akhriysa aan ahayna inay su-aashu ay tahay. marka inuu isku dayo inuu si fiican u akhriyo inuu ku celiyo markuu fahmana markaas kadib uu ka jawaabo. waxaa dhici karta su-aalaha inay marka ugu soreysa kuwa u fudud yihiin oo arko oo u yaqaano. waxaa fiican inuu kuwaas ku bilaabo oo kuwa waxoogaa adayg uu ka dareemin inuusan ku bilaabin. maxaa yeele kuwa dambe ayay saameyn kaga yeelanaysaa. laakiin su-aasha uu yaqaano markuu jawaabo waa sida isha biyaha oo kale maskaxda dadku way soo maaxanaysaa macluumaadka ayaa dib ugu soo noqonaya. marka inta uu yaqaano inuu ku bilaabo hadday doonto su-aasha ugu dambaysa ha noqoto ama ku sii xitaa noqoto inuu kuwaas ka jawaabo kuwa kalena tartiib ugu soo noqdo. midda kale imtixaanka markuu asaga hawshiisa uu qabsado oo uu ka shaqeeyo inuusan degdegin oo uusan isku dayin inuu noqdo ka ugu horbaxa. maxaa yeelay in loogu horbaxayo abaalmarin iskuma siinaayeen wixii waxa lagu qoray ee dhow macalinka uu saxaya ayay natiijada ay ka soo bixi doontaa. marka aad ciddii hore ugu baxaysa waxba kaama gelin hebel baa baxay ama heblaa kacday waxba adiga shaqo kuma lihid. waxaad shaqo ku leedahay adiga iyo warqadaada iyo wixii meesha ku qorato inaad saa saarto laga maarmaan. xagga kale marka la fiiriyo ruuxda dadka iyo ku xirnaanshaha ilaahay iyo ducada qofku akhrisanayana muhiim ay u yihiin. alla ka cabsiga inuu kaashado wattaqu llah wayucallimukum allah. isagoo marka salaada subax tukaday oo weyse qaba inuu imtixaankii u imaado. haddii ay galab tahayna isagoo salaadii markaa ugu xigtay intuu soo tukaday yani u diyaarsan inuu yimaado. xagga kale isagoo yani xagga ku saabsan caloosha iyo
ayna macnaha kaasi soo ama wax soo cunay ama yani caloosha wax ku jira inuu kala yaan raba hadii kale laba imtixaan muu geli karo hoosna inuu ka gubto oo uu gaajiysan yahay maskaxdiisii yani si kale ay noqonaysaa marka si dhexdhexaad ah oo qofkan imtixaankiisu u saaran ayaa loo baahan yahay aan kusoo gabagabeynayaa adkaarta ama ducada ardada imtixaanka gelaysa ay akhrisanayaan waxay tahay markii albaabka ay soo gaaraan albaabka uu ka galaayo imtixaanka uu ku galaayo inuu yidhaahdo rabbi adkhilnii mudkhala sidqin markii uu galo oo kursigiisa uu kor istaago oo u fadhiisanaayan inuu yidhaahdo rabbi anzilnii munzilan mubaarakan wa anta khayru lmunziliin marka imtixaanka loo keeno oo warqadii u arka oo rabo inuu ka jawaabana inuu ku bilaabo bismi illaahi araxmaan araxiim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي markuu imtixaankiis ka soo shaqaysto oo soo dhamaysto warqadda uu macalinku u dhiibaayana warqadda inuu dhiibo albaabkana uu ka baxo si degan isagoo dhahaya wa akhrijnii mukhraja sidqin wajcal lii min ladunka sultaanan nasiira waxaan u rajeynaynaa ardaydeena guul ayaan u rajeynaynaa ilaahay subxaana watacaala imtixaanka u fuudeeyo mustaqbal wanaagsan oo jaamacadaha ay ku galaana allah u sahlo waddankeena guud ahaana guul allah inoogu dhameeyo imtixaanka aan gelayno waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu